warkii odaygu ku cuntay muwaay wiliq waay gabadhii lala soo baxay wiilku muxuu ku warrama uur bay leedahay buu odaygii wuxuu ku yiri gabadhay aan la soo baxay arooska ahayd uur bay leedahay waay maxaan kugu dhig gashaanti bay ahay marka hore isna barbaar ninkaani uu kula baxay gabar gashaanti waay uur bay leedahay buu waay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض وضيال ملك استوى جوكتان يو وحكستوى كسوغنتي بوحان لنا هاي برواقد ربي كوركينا هوضاحات وبرامج كيني اتكدا وانشرتين فيسبوك وشيكا كلا او حيسا له او مانتاي الى سو تشيدين صاحبكي ايغاري حاجي ياسين بيجكا لايكتا iyo شيرتا inoo saara laftigiinuna nala wadaaga qisooyinka cajiibka aad isleediin dadka laftigooda ayay waxtar u tahay ama sheeko wax laga qori karay u noqonaysa soo dhawaada mar kale waa igaree ayaa maanta soo diyaariyay waa dhacdo ka dhacday dhulkii hooyo oo asaga ayaa noo kala dhigay igaree soo dhow waa dhawahay saaxiib saaxiibadiina waa salaamaya qisadan maxaan ugu magac daraynaa marka hore wallo aan sheegayn dadkii magacyadoodii waxaan ugu magac daraynaa guurkii labada jeer guurkii saaxiibadeen waxa oran la magacay u bixiyaan afkaartooda laakiin anagu waxaan oranaynaa guurkii labada jeer waa taas laftigeeda ciwaankaas baaba cajiib ah guurkan labada jeer sidee u dhacay muxuu ahaa xagee ka dhacay bal deegaankii mana dulgii oo sheekadii oo sideedii ah waa si wanaagsan anigoo yaroo waa hore ahaydoo gelayaga raaco guriga sama joogo buu hadlana waaxigiisa aan deganahay oo ay dar barwaaqa tahay oo dhasayna oo geel goojboob yahay looduna sayn waraare ay tahay ariguna barqa dharag yahay ciyaartana laga tunto duleedada guryaha way geel waa sayn waraare geel loodu waa sayn waraare geel waa goojboob ariguna duleedadu daqa kuwaasi waa u jeedaan oo waa qurux badan yihiin laakiin sheekada iyadu intaasba kuma socotee iyada ka qurux badan oo aroosyadu habeenba awr la qasho ama habeenba dhowr awr la qasho aroosyadu habeenna uu sanbaaqan arooska la dhisaba gabdha lagala sii baxo iska soo daba dhacay way istabahayaan arooska hebel ayaa ku xiga arooska hebel yaa lagala baxay xalay la yiraahdo oo hadii arooska cildiga la bixi waayay wali uu mid joomi u ahaa nin wacan buu ahaa maxaa cildiga la bixi waayay bay ahayd nin baa gabadha baxay niman ehel ahayn ama nahay ehel ahayn wax laga tigay noqonaysa niman ehel nahay oo ilmaadeer nahay baa gabadha baxay gabadh gashaantii oo guudka fidhatay oo waa joogta nin barbaara waana carabo waa carabo ciid cas weey waa ciid cas ninka ciid la isku yahay inaadaro gabadhi ninka la baxa ragii anigu la saaray kuma jirin wula tagay magaalada Sacad liyaha buugi wala soo dhaweey gabadhii ninkii reerkoodii baa ka doonayo gabadhii ninkii waa lagu meheriyay aroos macna le igarow noo kala dhigdhig gabadhii waa lala baxa waa garta oo waa la saara sax meel buu geeyay haddana waxaa dib noogu celisay reerihii waa la doona waaba lala baxay see loo doona gabadhan iyo marka guurku magacyo badan buu leeyahay gabadh baan la baxayaa gurigaagu aan meel ku ogaa baan ku soo tubinayaa gurigaaga markaan keeno waxaan kuu sheegayaa adigoo odaya inaan gabadhii ina hebel oo ay dhashay ina hebel reer hebel ahayd inaan wadno anigii hebel maadaama dhac anigu aan wado waan la soo baxay dhucuna mid jiray uu yahay dad baa la dirayaa dadkii raad soo raaci lahaa inaga daba imaan lahaa aadaya kadibna inta laga hortago hadday iska hor yimaadaan intay ka hortagaan bay odhanayaan niyow gabadhii annaga hayna ama dhici annaga hayna annagoo qod iyo qabiilo iyo qoysaba gabadha way ka doonaynaa warna si naga suga ama meesh bay kula xajiisanayaan hadday ka hor imaan waayaan guryahoodii bay u dhaadhacayaan ugu tagayaan saasa gabadha ninka lagu weydiisanaya la bixitaan mar saas uu ahaa marna inta la baxo oo la masaafaysto bal meersan jiray labadu way jireen gabadhaas ninka uu la baxa reerkii baa la weydiistay markuu gurigoodii geeyay waa la dhisay wax aroos ah oo laba diryaale ah oo waa jooga oo aan laba urin laga qalay baan dhisnaa raggii cidiyuhu dhilan gaadheen ee farwac saadeen ee tiirarka goynayay baan ka mid ahaa
raggii meesha ka gabiyay iyo kuwii ka heesiyay iyo gabdhihii moogtay intuba meesha waa la isku arkaa arooskii markii lagu kala dareeray ee habeenkii 3 meelood marka laga dhigo 2 meelood bar ay tagtay ninkii gurigii rabo inuu hooydo waa uu hooyane gurigii markuu xoogaa joogay buu ka soo baxa waana isla habeenkii la hooyay koodii habeenimo waa aqalka arooska marka la dhisayo deegaanka aan ka imid afkeenu waa gobol waxa looga hadlaa kowda waa habeenka koobaad gaafkuna waa habeenka saddexaad habeen baa loo seexdaa deegaanada qaar gaaf baa la dhahaa arooska waa hal habeen buu isku dhacaa علي تعالى adigu ninkii guriga muu seexan banaanka meeshu seexan jiray inuu gabadha lahayn ee geelay dabadiisa ahayd golihiisa buu iska seexdaa waagi markuu bariyo odayga baa arkay aabihii wuu wareystay khaldan buu wuu wareystay intuu yimid halka ku warramay ku yiri markaan magaaladii aadno baan ku warramaya way israaceen jidku ugu sii warrama warkii uu siiyay markuu warkii siiyay warkii odaygu ku cuntay muwaay ولقي واي كبدي لا soo baxay wiilku muxuu ku warrama uur bay leedahay buu odaygu wuxuu ku yiri gabadhay aan la soo baxay arooska ahayd uur bay leedahay waay maxaan kugu dhigay shanti bay ahay marka hore isna barbaar ninkaani uu kula baxay gabar gashanti waay uur bay leedahay buu waay odayga ama kaag iyo fariid bay ku noqotaa waay waa la soo fadhiistay oo reerihii gabadha iyo ninka gabadhu ninkii reerkii dhalay bay soo fadhiistay waxa lagu shawray gabadhu inay uur leedahay anagana aysan nool ahayn horeyna aan ogeyn gabadhaas inaan oogde gabadha iyada noqon mayso waxa oranaya reerkii gabadha guurshada baa oranaya gabadhii sidii bay reerkii kaga tagta uurkiina cid ay ku sheegtaan uma garanayo waqti ajaayib weey ajaayib Allah ka soo ajaayibsan gabadhii ninkii sidii buu كفرة markay 9 sano oo dambe labadoodu midna uusan guursan wadana la baxa gabadhii la soo hooyay oo uurka ku soo baxay uurkana ninkaas ay inuu lahayn oo hadana la kala tagay ba dib dambe hadana iyadii ula baxay intuu waliba shukaansaday waaya halka noogu cil intuu waliba gabadhii isagii muu guursan iyadana weyto dambe may oran intuu shukaansaday oo shukaansi kii horeba deeka adag waji kale leeyahay oo afka xaada shukaansaday wiilaan niibta ku geeyeeyo way siyeeleeno uu la baxayo ragii bariga hore la saaray ila waday qayb kamid ah la kaxaysayo magaaladii bariga hore la geeyay magaalada uma inay ahayd baa la geeyeeyo dib baa loogu meheriyeeyo waxa ka dhacay in aad iyo aad deegaankii ee shakadii u gaadhay kadib aad loo hadalhayay gabadhii waxay dhashaa markii hore maxay dhashay ilmihii kii hore oo uu baxa kaas waa baxa waxa garan maayo adigu ilmahaas uu dhinta waaya meel ka yimidna lama yaqaan uu shafeecay waaya kulligeed way taqaan waaya gabadhii ilaahay uu naxariistay ninkii gabadhii baa dhimatay gabadhii dib bay ka dhiman doontaa waaya ninkii markuu guursaday ee dambe arosku wuxuu noqday kii hore mid ka sheeka duwan waaya oo ka la bari duwan waaya oo ka duca duwan waaya oo guurtida timid la yiraahdo allah wa amar ilaahay calafku inuu cajiib yahay intaasoo sano iyo halka joogto isna halka joogayo ilaa nin kasta naagtiisu way sugtaa nin kastana xaaskiisa uu sugaayo waa calaf ilaahay gabadhii geesh ciyaala markuu ninkii guursaday geesh ciyaala oo isku nuuga bay u dhasha muddo dambana way xijaabatay ilaahay ha u naxariistay allah u naxariisto sheekadaasi ayana waxay ahayd mid miyiga ku arkay bay ahayd way qoyo badan miyiga ku arkay baa jiray laakiin tani waa tii maanta bilowga aan ka dhigano sheekooyinkan soo socda waa sheekooyinkii miyiga uu ku soo arkay igare kuwii waliba dhacdadii oo la yaabka badnayd annaga laftigeeduna aan garan weynay meel aan u saarno daawadayaal sheekooyinka aad haysaan waa sheekooyin aad u cajiib ah kana macaan kuwa annagu aan hayno waliba kuwa miyiga dee kuwa miyigu way ka cajibsan yihiin way ka sii midba midda kale ka macaan tahay nala wadaaga sheekooyinkiina commentigana noogu soo qora dhacdadan laftigeeda bal sidee u aragtaa labadan qof oo intaa is suganayay haddana iscalfaday ka bacdina gabadhii ay geeriyootay igare
sheekooyin kale uu noo hayaa jirta oo idinkugu xajinaynaa kuwaana bal like-ta share-ta commentigana kama kaftame dhag iyo dhag noogu soo siiya noo soo qora wali mid kale oran lahaa magac u bixiya bal adinku maxaad u bixin lahayd guurkii labada jeer baan sheekooyin badan oo adag baa jira gar adagna maqalay laakiin qisooyinkaas oo dhan waa soo gudbin doonaa waana mahadsantiin muuqaalkan kuwa kale ku xiga daawasho wanaagsan